السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada casharkii taxanaha Windows 10 maanta casharkan waxaan ku eegaynaa sida loo sameeyo waxa la dhaho dynamic lock micnaheedu yahay computerkaaga sida loo lock gareeyo markaa ka tagtid ama isagu suu isu loo gareeyo si automatic markaa ka dhaqaaqdid oo meel ka durugsan aad tagtid adigoo isticmaalaya computerka waa ka dhaqaaqday ilaa waxaa socotay meel xoogaa ka durugsan 30 second ka bacdi computerkaaga wuu isloo gareynayaa si uusan qof kale u gelin marka waxaa taa ku samayn karaa adigoo isticmaalaya telefoonkaaga ama bluetooth device oo macnaha waa inaad wax markaas haysatid oo bluetooth ku shaqeeya oo markaa computer ka durugtid markaas si uu markaa computerku isu xiro oo isu loo gareeyo waxaa isticmaali karaa telefoonada bluetooth ay leeyihiin Android iyo iOS labadaba marka si aan taa idiin tuso waxaad samaynaysaa taa u loo gareysid waxaa halkan ka baari karaa dynamic lock ayaad baari karaa ama waxaad tegi karaa start settings and account settings ama accounts sign in options sidaan casharkii horeba usoo aragnay oo meeshaan ka aragnay waxaad kaloo samayn karaa right click ayaa ama halkaan gujin karaa waxaad tegi karaa waxaad gujin karaa magaca isticmaalaha waxaad tegi kartaa change account isku mid weeye sida ku tagtidba waxaad u baahan tahay inaad tagtid sign in options markaad tagtid waxaad tegaysaa meeshaan odhanaysa dynamic lock halkaan markaad tagtid wuxuu ku tusayaa meeshaan odhanaysa allow Windows to automatically lock your device when you are away micnaheedu yahay markaa computerka ka durugtid Windows 10 waxaad ogolaataa inay islo garayso marka haddaan markaas calaamad saaro oo saxitaan aan saaro wuxuu i weydiinayaa markaas inaan device ku xiro ama bluetooth device sida telefoonka oo kale marka waa inay computerka iyo phone-ka isku xiran yihiin si aan taa u sameeyo waxaan taabanayaa ama gujinayaa meeshaan odhanaysa bluetooth and other devices halkaan waxaa iga soo baxaya markaas wixii bluetooth ah oo markaas ku xiran maadaama uusan telefoonka ku xirnayn waxaan odhan karaa add bluetooth and other device marka si aan taas idin tuso waxaad tegaysaa telefoonkana waa idin tusayaa so telefoonkaaga haddii aad tagtid settings hadda waxaan isticmaalayaa iPhone laakiin Androidna sidoo kale waa ugu xiri karaa waxaad tegaysaa bluetoothka markaad tagtid computerka magaciisa baaraysaa ama hadda wuu raadinaya marka si aad u ogaatid computerkana waxaad tegi karaa waxaa furi karaa command prompt waxaad garaaci karaa host name marka magaca computerka halkaas kaaga soo baxaya marka magaca computerka markaa ogaatid telefoonkaaga markaa tagtid bluetooth waxaad tegaysaa waxaad taabanaysaa computerka magaciisa markaa ku xiraysid oo bluetooth ahaan aad ugu xiraysid markaa taabatid message-kan ayaa kuu soo baxaya oo markaa weydiinaya inuu isku xiro computerka iyo telefoonka bluetooth ahaan allow ayaad odhanaysaa marka micnaheeda waxa weeye wuu isku xiran yahay markaad telefoonka iyo computerka wuu isku xiran yahay oo telefoonka iPhone-ka marka wuu kuu sheegayaa computerka connected markaa aragtid inuu telefoonka ka aragtid inuu uu ku xiran yahay computerka markaas micnaheeda waxa weeye haddaan ku noqdo meeshii odhanaysay dynamic lock uu on yahay telefoonka iyo isku xiran yihiina iyo computerka marka waxaan sameynayaa hadda telefoonka iyo computerka waa isku xiran yihiin waxaan ka tegayaa screenka ayaan ka tegayaa meel fog ayaan xoogaa ka fog tago 30 second ka bacdi inuu is xiro markaas marka hadda meel ka fog ayaan tagayaa si aan u tijaabino inuu is xiro
marka hadda waa soo noqday waxaan soo noqday computerkii oo xiran macnaheeda waxa weeye markaan computerka ka ag tago isagaa isxiraya si firfircoon marka saas u shaqeeyaa dynamic lock marka cashirkan aan idin tusay sida uu computerkaaga loo xiro markaa ka tagtid si uu markaas aan qof u gelin intaasaan ku joojinayaa cashirka dambana insha allah hanoo ahaato assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu